kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ee deegaan channel TV. waxaa maanta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ansixiyeen inay shirkadda DP World ka baxdo. haddaba baarlamaanka waxaan idinku soo gudbinaynaa Faysal Cali Waraabe oo baarlamaanka Soomaaliland ku canaananaya qaar ka mid ah waxa ay shaqadoodu tahay inay garan waayeen oo ay la safan yihiin meel aan la garanaynin halka kuwii Soomaaliya buu ay xagga ka ciyaarayaan iyo baarlamaankii Soomaaliya ee ansixiyay labadaba waxaan halkan ka daawan doonaa daawadayaal ku soo dhawaada daawasho wanaagsan telefishinka caalamiga ee deegaan channel TV. Faysal wuxuu ka hadlayay Sonsaf shir ay ku qabsatay maanta magaalada Hargeysa oo ka dhacay doorashooyinkii waxaa qaribay tii madaxweyne hadday noqoto tii guurtiga hadday noqoto tii baarlamaanka waxay noqotay dibudhiga hadday adduunka meel ma jirto waxaa loo sameeya lahaa teeranka housekaasi ama organagaasi waa 5 years 4 years that means waa cimrigooda waa inta laakiin waxaynu soo saarnay waxa la constitution on chaque constitution l'électeur on scroll baarlamaan waqtigiisa dhamaado uu fadhiyaa adduunka ma Lubnaan waxa ka dhacday baarlamaanka madaxweynaha oo baarlamaanka dowladda ayaa waqtigiisa dhamaaday baarlamaanka ku heshiin waayay madaxweynaha الباب وقف حواتي وسوي سوات سوق نبع مدحوي ناس كفريا وحس وعن شيء وكبير ونضرب على ما وكبير أدوك ما وين بأدوس كلام سيستم الجرم اللي أدوك بستان هو أدوس بدومين دوا طوطي أنا دوا طوطي ولا يتشانش xildhibaan balaaki ayaa u arkay inuu Faysal isaga weerarayo Faysalla jawaabta ayuu siiyay haddaba daawade maxay tahay qodobada ay ka soo saareen baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya heshiiskii DP World iyo sharci ahaanshihiisa iyo sida uu dhaqan galayo waxaanu ka daawan doonaa iyagana waanu qodobada soo baxay nala dhageyso ama nala daawo sida dhaqanku uu yahay heshiis waxaa geli karaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda markay galaanna sida ku qoran qodobka 80aad ee dastuurka inoo yaala procedure oo marayo leeyahay oo baarlamaanka kadibna madaxweynaha uu saxiixo kadibna lagu soo saaraa faafin rasmiya wax dhacayna ma ahayn oo heshiisku wuxuu quseeyo waxay ay yihiin milkiyad qaran sidoo kale qodobka saddexaad isla heerkan oo qeexaya inaysan jirin cid si gaar ah u sheegan karta hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan markuu arkay qodobka 69aad faqradda koobaad oo qeexaya in golaha shacabku awood u leeyahay qurinta sharci cusub oo aan ka ahayn miisaaniyadda sanadlaha asagoo ku kulansan kalfadhiga saddexaad kulankiisa koobaad ee 12 Maarso 2018 wuxuu ansixiyay xeerkan qodobka koobaad heshiis caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay'adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka labaad faqradda koobaad heshiis kasta oo lala galo dowlad ama hay'ad kale oo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aan sharciyad lahayn labo heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World
DP World lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan faqradda saddexaad shirkadda Dubai Port World DP World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada madaxbannaanida midnimada iyo badqabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa saadaradeed shirkaddan laga mamnuucay dalka qodobka saddexaad faqradda koowaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dowladda isutaga Imaaraadka Carabta UAE kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka Soomaaliya tan ayaa imanaysa iyada oo ay baryahan kalamaan ahaayeen Somaliland iyo Soomaaliya oo isku maandhaafsanaa magaalada Berbera oo ay dowladda Somaliland sheegtay in la maalgashanayo haddaba dadka Soomaalidu meel kasta ay joogaan waxa ay u dhigtaagayaan labadan go'aan balka run noqda tan ayaa siyaasiyiintu waxay leeyihiin haddii ay Somaliland ku guulaysato waxay noqonaysaa inay kala tageenba wadanka Soomaaliya la yiraahdo haddii heshiiskan sidaa ku socdo ay dowladda Soomaaliya ogaan doonto baa la yiri tamarteeda haddii guulaysato dowladda Soomaaliya iyo diblomaasiyadeeda ay imka dhaqdhaqaajinaysan waxa la sheegayaa inay rajo u tahay midnimadii iyo Soomaalinimadii halka dadka kala socoteen oo telefishinka caalamiga deegaan channel TV daawadayaal waxaan naga sugtaanba warar kale iyo wixii kale ee cusub inaan idin soo gudbino mahadsanid